in la dilay Ayatollah Cali Khamenei isla markaasina sida uu yiri tani ay cadaalad u tahay waa hadalka soo u dhigay xataa cidi bedel leh Ayatollah Cali Khamenei ee diyaariyeen marka sidaas la aligeed ayaga laftirkooda ma ahayn dad meel u fadhiyay oo dabcan way ku tashanayeen in wax walba ay dhici karaan oo way ka sii baaraandegayeen Iiraanna qidada fara badan ayay maaragtay aad ugu tahay in wadan ku hormaray oo daawadayaal soo dhawaada gorroweyd waxaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si rasmi isagu sheegay in la dilay hogaamiyihii ugu sarreeyay dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei kaas oo si rasmi ah isagu ahaa madaxii ugu sarreeyay talada dalka waddankaasna isagu hayay haddaba si aan wax badan uga ogaano in marka madaxweyne Trump uu isagu ku dhawaaqay warkan waxaa si toos ah markaasi qadka ugu jirta wariye Sahra Cabdi Axmed oo ah madaxa shabakadda Somali Coverage TV oo ku sugan Virginia waddanka Mareykanka Sahra soo dhawow marka koowaad marka labaad maxaa laga ogyahay dilka hogaamiyihii ugu sarreeyay dalka Iiraan waad mahadsantahay cabdiqaadir sida aad sheegtayba hogaamiyaha dalkaasi Iiraan ee ruuxiga ahaa Ayatollah Cali Khamenei waxaa ku dhawaaqay saacad ka hor 2 saac ka hor ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo markaasi si shaki uu ku jiro u sheegay in ninkaasi jaan iyo cirib meel u dhiga aan la heenin isla markaasina la la'yahay kadib haddana wararka ayaa isa soo tarayay warbaahinta caalamka ee qaar ka mid ah wakaaladaha wararka iyo maaragtay warbaahinta reer galbeedka haddana waxaa jirta in si furan uu ugu dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in la dilay Ayatollah Cali Khamenei isla markaasina sida uu yiri tani ay cadaalad u tahay waa hadalka soo u dhigay dadka reer Iiraan kaliya ma ahane dunida iyo dadka reer Mareykanba in la dilo Ayatollah Cali Khamenei waa gartay reer Iiraan maxaa laga ogyahay iyaguna oo miyay ku dhawaaqeen oo warkan ma xaqiijiyeen mise waa beeniyeen waa runtaa sidaas aad sheegtay reer Iiraanna dhankooda way beenteeyeen oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil markii uu hadlay warbaahinta dunida qaarkoodna ay hadal hayeen ayaa afayeen u hadlay dowladda Iiraan waxa uu sheegay in uu caafimaad qabo oo uu bad qabo oo uu meel nabdoon joogo Ayatollah Cali Khamenei oo warar kale isla dhex maraya is waxba ka jirin waa gartay dilkiisa saameyn intee lag ayuu ku yeelanayaa dadka Iiraan iyo hoggaankiisa maadaama waa ninkii ugu sarreeyay talada ugu badan gacantiisa ay ku jirtay aad iyo aad muddaba waxaa jirtay in Iiraan cunaqabateen iyo cagajugleen iyo cabsigelinba lagu waday ku salaysan inay ka maaragtay tanaasusho hubkeeda nuclearka iyo barnaamijkeeda nuclearka balse hadda waxaa muuqato dhawaanahan 48 saac ugu dambeysay madaxweyne Donald Trump iyo Israa'iilba inay ku dhawaaqayeen in ajandaha ugu weyn haatan uu yahay sidii loo soo afjari lahaa dowladda Islaamiga ee Iiraan halkaasi ka dhisan wixii intaasi ka dambeeyna weerarkii ayaaba dhacay basaad ogtahay Israa'iil ayaa weerarkii ugu horreeyay qaaday Mareykanka ku biiray marka Mareykanku waa tuu hubkiisii ugu badnaa iyo ciidamada ugu badnaa ee dhinaca badda iyo kulli ay geeyeen dhinaca bariga dhexe markabka ugu weyn ee dagaalka Mareykanka halkaasi ku sugan marka hadda dilkiisan Iiraan iyadaba way ogaad intaas in loo soo hub urursanayo laguna soo socday waxaa ugu maqaalaa xataa ama warbaahinta in badan oo ka mid ay qorayeen in ay Iiraan ayaga laftirkooda si weyn u diyaar garoobeen oo xataa cidi bedel leh Ayatollah Cali Khamenei ee diyaariyeen marka sidaas la aligeed ayaga laftirkooda ma ahayn dad meel u fadhiyay oo dabcan way ku tashanayeen in wax walba ay dhici karaan oo way ka sii baaraandegayeen Iiraanna qidada fara badan ayay maaragtay aad ugu tahay wadan ku hormaray oo waad ogtahay adduunkii oo dhan baa hadda ka qayliya hadda waxaad la socotaa in bariga dhexe oo dhan ay duqeynayaan oo dagaalkooda u wada gaaray saldhigyadii Mareykanka magaalooyinkii wadamadii ay ku yaaleen marka Iiraan ma sahlana ayaga laftirkooda yes waa dabcan waa suuragal saameyn xoogan buu ku reebi karaa haddii ay suuragal noqoto oo sida warka loo dhigayo ee dhab u noqoto in la dilo Ayatollah Cali Khamenei balse weli waxaan dareensanahay in ay isbedel wixii hadday yimaadaan ay diyaar garoobeen Iiraan waa gartay ilaa hadda ma waxaa jira qaabka loo dilay ilaa hadda sida markaasi warbaahinta Mareykanka ay qorayso yaa fududeeyay baa la isleeyahay warbaahinta qaar ay tilmaamaysaa ma markaa shirqool baa dhacay goobta lagu dilay sida hadda la tilmaamayo waa hoygii waa xaruntii uu deganaa waqti xaadirkan oo dagaalo ay jireen oo cabsidaas ay jirtayna markay tani waqtigaas sidee uu ugu sugnaanaya hogaamiye dal dhan hogaaminayay halka ugu weyn laga heli karo
waa runta markii la fiiriyo xataa hadda gantaalada maanta waxaa la warinaya inay ku dhaceen xafiisyadiis uu ku shaqaynayay madaxweyne Donald Trump waxaa xusid mudan in uu sheegay dilkiisa in ay ka gacan ka geysteen ciidamada Mareykanka iyo Israa'iil duqeymaha ay ku ridayaan halkaasi laguna bartilmaameedsado lagu dhex dilay meeshaas marka ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo warar badan oo warka hadda uu cusub yahay warar badan oo faahfaahsan kama soo bixin waxa uu yahay dilkan sida loo dilay cidda ka qayb qaatay iyo wax oo dhan dabcan laakiinse waxaan ognahay in duqeyn uun ay jirto oo wax infantry aan lagu gelin ama loo aadin dalkaasi Iran marka duqeyntaasi jirta unbaa dabcan lagu dilay maanta waxaad la socotaa 110 qof ku dhowaad gabdho yaroo iskooley ah in lagu dilay iskool ku yaalo Tahraan meel aan ka fogeyn marka tanina laga yaabo inay qayb ka tahay inkastoo Iran aysan weli xaqiijinin arrintaas waana filaya inay xaqiijin doonaan haddii ay jirto afar saac ee soo socdana xaqiijin inay soo bixi doonto ayay u badan tahay haddii uu dhinto Ayatollah Cali Khamenei waa gartay markaa fiirisid hadda waqti xaadirkan madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu sheegay weerarka inuu socdo marka tallaabada dilkiisu weerarka miyay soo afjari doontaa mise waxa la sugi doonaa baa la iska gibi ahaanba nidaamka oo dhan inuu burburo dowladda Mareykanka iyo Israa'iilba waxay sheegeen nidaamka oo dhan inay la dagaalamayaan oo ay rabaan inay meesha ka saaraan marka hadday doonayaan in ay rejiimka ama maamulka dhan ee Iran oo 1979kii la dhisay inay meesha ka saaraan dabcan kuma ekaan doonaan haddii la xaqiijiyo xataa dilkiisa keli ah Ayatollah Cali Khamenei sidaasi si lamidana dhinaca Iran suuragal ma aha in Iran uu yahay qofka kaliya jiritaankeeda uu ku xirnaa oo haddii uu dhinto xataa gadaashiisa way sii jiri doontaa waxaana suuragal ah in dagaalka uu daba dheeraado waayo dagaalka hadda 24 saac isagoonan jirin ayaa durbaba la dareemayaa guud ahaan caalamka si weyn looga dareemaya marka oo bariga dhex laga dareemaya oo saadaal xun iyo dagaal xun uu noqday oo saameyn yeesho duqeymihiisa meelbaba uu si weyn u saameeyey marka way jiri doontaa in dagaalkan haddii xataa dilkan uu dhaco in uu muddo sii daba dheeraado sida laga cabsi qabo khataro fara badan ayaa laga cabsi qabaa waddan nuclear looga baqayo gantaalo haysta ballistic ah oo isugu gudbi kara gobollada ama xataa haddii la dhaho magaalooyinka ku heeran waddamada xuduudda la leh marka waxaasoo dhan waxay kusii shidaysaa benziinka cabsidii laga qabay dagaalka bariga dhexe inuu faraha ka baxo waa gartay waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey marka la eego barnaamijkan markaad fiirisid dagaal baa hadda socda xaaladdu way qasan tahay waxay xirtay marka la eego ilaa hadda sida la tilmaamayo marinka hormus waa sii xirmaya maraakiibta meesha maraysa iyo weliba dhaqaalaha halka dunidoo dhan naftadii shidaalkii waad garan kartaa saameyn intee leg baa ka dhalan karaysa bay kula tahay tallaabadaas Iiraan ay ku xirayso marinka hormus marinkaas hormus keliya ma ahan saameyn dhaqaale saameyn isu socod xataa hadda diyaarado badan ayaa la baajiyey oo aadi lahaa dhinaca bariga dhexe waxaa jirto in maaragtay saliidihii iyo gaaskii iyo meelahaasi ganacsigii laga soo qaadayay ay xirmayaan waxaa jirto howlihii socday dadaalada nabadda ee la rabay in lagu soo dabaalo Iran iyo Mareykanka inay joogsadeen waxyaabo badan oo khataro leh ayaa ka soo socda bariga dhexe ama ka dhacayaba hadda durbaba marka waxay u muuqataa dagaalkan muddo in la sii saadaalinayo laakiinse dhinac markii laga eego oo waddamada qaarkood ay lahaayeen waxaa jiri doonto in sida ugu hortagi lahayn aan sameyno waddamo ayaa xataa dadkooda u sameeyey meelo ay shelter ka dhigtaan ama ay gabaadsadaan sida Israa'iil oo kaleeto sida Sacuudiga oo kaleeto sida Qatar oo kaleeto waddamadaasi waxaa la hadalhayay Israa'iil oo kaleeto maalmihii lasoo dhaafay dadkooda meelihii ay ku badbaadi lahaayeen ayay sameynayeen marka waa dagaal loo diyaar garoobay dabcan wixii ka yimaadana in la arki doono ay tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd madaxa shabakadda Somali Coverage TV wariyaha weyn Sahra Cabdi Axmed aad baad u mahadsan tahay Sahra aad iyo aad baad u mahadsan Cabdiqaadir aad baad u mahadsantahay